السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمان أصحابتي وسلامتين ميل والبو دنيا دافية ذاك جوكتان ومركلي ولكن حنيف حاج محمود وإذن كلا هطلع إلنا أنا ميتي فضلا هديك وعصب تشرن كي سبسكرايب كده بسي وشارك الله في اللي كده دعكسي دنبالكم هديك قفل كسيدا وصورة دعو شلي هدينا الداوج سبسكرايب لهم فضلا ما أنتين وسراديك وما سن قبل الكرافرو سي كسو جاران مو قالوا البان سو جرينا سو نقطة عن إلى صعد isku soo noqod wacan oo wanaagsan asxaabta meel walba dunida daafeeda ka joogtaan walaalayaal maanta reaction idin ma hayo qisas ama sheekana ma idin wado laakiin waxaan rabaa codsi oo noogu yimid walaasheena qaaliga ah youtuberada weyn Yanas inaan codsigeeda ugu jawaabno annagoo tixgelinayno qiimaha iyo maqaamka iyo muga ay agteena ku leedahay waayo Yanas waa ogtiin waa qof fani ah oo talent leh adduunka dhanay sanad walba oo soonka markii la gaaro saxurta u kicisaa Soomaaliya ka soo bilaawday ilaa Yurub Australia ilaa iyo Mareykan ee habeenkii saxurta u kacisay iyadoo gurbaankeeda caananiyadoogana wadato Yanas qoftaas waaye ee kulligiina waa wada taqaaniin aqoon oo dheeraad ama sharaxaad ma idin kaga baahna waxaan halkan ka baafinaynaa marka anigoo ku hadlaya magaca Yanas waxaan halkan ka baafinaynaa ama aan baadi gooweynaa wiil ibn aadan ayaa maqan wiilkaasna Yanas wixii u tahay eedo walaalkeeda ayaa dhalay sheekada waxay ku bilaabatay Yanas walaalkeeda iyo gabadha uu guursaday jaceelay isku guursadeen mudday isla joogeen adiga daruufo iyo dan adduunyo ayaa kala soo dhaxgashay oo waa isfureen wax xumaan kuma kala tagin sidoo walaalkeena inoo sheegi doono markii ay kala tagayeen dhaxdooda waxa yaalay wiil ay isu dhaleen gabadhii way soo baxday waxay ku nooshahay wadamada Yurub kamid ah gaar ahaan sidoo asaga inoo sheegay ee boqortooyada Netherland ama sida u taqaaneen Holland ayay joogtaa gabadhaas iyo wiil kala raadinayaan wiilka eedooyinkiisana waxay joogaan isla dalka Netherland Holland ayay joogaan eedadiisa kale Yanasne waxay joogtaa ee dalkani Jarmal aniga naftirkeyga aan ku noolahay marka wiilkan si naxariis leh ibn aadanimo ku jirto aabanimo leh wuxuu u codsanayaa in wiilkiisa la soo xiriiriyo waayo waa aabba wax dhalay wiiligiisana ma arkin wiilkiisa inuu arko warba markii intaas aan ka gudubnana wiilka naftirkiisa waa u baahan yahay heebtiisa iyo nasabkiisa iyo meeshuu ka soo jeedo in uu ogaado ehelkiisa yaa eedu yaa adeer u yaa aabihiisa inuu ogaado haddii uu ogaan waayo runtii waxa dhici karo mashaakil fara badan intaan sharaxaadaas u gudagelin marka hore walaalkeena codkiisa aan dhageysano adeega Maxamuud Salaad Nuur oo xildhibaan ahaa oo markuu ku geeriyooday dalka Kenya maamuus Ziya Burhaan Abdiraxmaan ayaan garanayaa inta kalena waxay degan yihiin dalka Mareykanka hadda hooyadeed ayaa ku sugan jeclahay magaalada Muqdisho inkastoo meelan ka raadiyaan ogan anigu waxaan ku sugnaa magaalada marka intii warka haysa ama aqoon u leh social media Yanas adeega soo xiriiro Aisha Abdiraxmaan Isxaaq ayaa waxay faahfaahinad ka heli karteen ama ila soo socodsiin doonta aad u mahadsantiin asxaabada TikTok sida aad maqlayseen gabadha aabaheed magaciisa saddexan ayuu sheegay aabaheedana sodogiis way macnaha wuu dhintay Nairobi ku geeriyooday ayuu leeyahay gabadha hooyadeedana waxay joogtaa Muqdisho anigana waxaan ku noolahay Malko anigana waxaan ku noolahay Marko meel aan ugu xiriiro hooyadii ama ayeeyadii wiilkeyga ayeeyadu ahayd ma aqaan ayuu leeyahay laakiin haddeer waxa igala soo xiriiri kartiin aniga shakhsi ahaan personally Aisha Abdiraxmaan Isxaaq oo ku nool dalka Germany oo walaasheeda ah wiilkana eedu ah ayaad nagala soo xiriiri kartiin ayuu leeyahay codka wiili wuu socdaa aan dhageysana insha Allah dadka isticmaala qaadka baraha bulshada aad buu salaamantiin dhammaantiin sida bubantiin Soomaalidiin Ramadaan Kariim tobanka ugu dambeeya lagu jiraa khayrka Allah nagu waafajiyo marka waxaan u dirayaa deeqa Maxamuud Salaad Nuur deeqoy adduunyada ku noolahay wala dhimanaya ninkii dambeey doona Ilaahay baa og anigu waan ogahay aad ogtahay inaan wiil isku hayno aniga adiga wiilkeena
adiga gacantaadii uu ku dambeeyo marka ciddii oo yani wax ku tari doona ilaah baa og marka adiga xumaan kumaanan kala tegin walaal qaali waxaan jeclahay gabadha la yidhaahdo naas ayaad igala soo xiriiri karta hidooyinkiisa ku sugan jarmalka iyo holan iyaguna waxay rabaan inay bartaan wiilkooda marka adigu raalli haddii aad raalli ka tahay waxaan waa iska adduunyo inaan yani xiriirno ayaan jeclahay soo nadhawow ina soo xiriiri walaal qaali deeqa maxamuud salaad nuur yaa naas igala soo xiriir ama igu soo sidaa maqlayseen gabadha deeqa maxamuud salaad nuur ayaa la yidhaahdaa kolaytaba deeqa maxamuud salaad nuur waana maqlaysaa youtuber fara badan ayaa ka soo hadlay arrinkan sidoo kale walaalkayga youtuberka khaaliga ah tiita cadde ayaa ka hadlay horteeda mahadhi ah ka gaarto waxaan leenahay waa mahadsan yahay asagana wuxuu ku nooleeyahay naftirkiisa dalka Netherland dadka ugu badan fiirsada channelkiisana waxay joogaan dalkaasi Netherland marka Aishana ama Ayanaasna waxay ku nooshahay dalka Germany waxaan rabaa inaan sii raaciyo sheekiyar oo sheekooyinkan qisooyinka ama waxyaabaha ka dhalan karo halta ka hor waxaa dhacday xilligii oo macnaha maxalliga dawladda jirtay askari ama shufeer sida u taqaaniin shufeerka baabuuras wada adiga beledkiis tagasna ka aroosi jiray waxa la mid dadka hadda Mareykanka joogo oo tareelaha wada la mid oo taraaga wado gobolkii tagaan banaagay ku aroosan ilma lagu dhalooyaa meesh ilmihii xataa miska saayan wala kala khariyo marka adi shufeer ninkan wuxuu ahaa marka shufeer ama darwal ayuu ahaa kismaayo mar aada mar beledweyne aada mar galgacayo aada meesh istagana naag la isku aroosay ilmo la soo dhalay oo ninkan muddo kadib ninkan waa weynaadi beeshinaal naqdi rantiyaal naqdi waa la fadhiistay ilmihiisa qaar ma baka sooyo bakismaayo midalan waxa ugu dambaysa 20 sano ma tagin wiilkiis iyo naagtiis qawi ma soo booqin dadkii horane ninka naagta disqaba diska taga xataa waa iska sabreen ninkee leen sugaa ay ku dhaheeyada ninkee leen sugaa ani ma kasta ma bixeeso ali furo ma dhaheeso furiin ma dalbaheeso ma dacwo heeso marka kismaayadeeda iskiga nooleed wiil gabaray u dhashay hal gabar kismaayo joogtaa 10 wiil waxay joogan shalambood 4 wiil markay joogan kuwa galweynay joogan kuwa buulay joogan kuwa jamaamay joogan kuwa mashaaniyay joogan kuwa waagaadiyay joogan waa farji duqa waa farji ilma kadib waxaa dhacay gabar kismaayo sidaan ku soo sheegay gabar ayaa joogtay wiil asaga oo dhali oo kuwa scholarshipinka macallimiinta la raro macallin ayuu ahaa muqdisho laga qaaday waxa la geeyay kismaayo in uu arday wax bar macallinnimo kismaayo tagi gabadhii walaashiisa ahayd oo aabihiisa dhalay ay kismaayo isku barteen qaabka isku barteen waxay tahay iidane voluntary ama dadkan iskood u shaqeysto oo dawladda iskoolkii waxaas nadaafada guud xisaabsan ay ahayd macnaha voluntary nimo gabadhii ay isbarteen walaashiisa way aabihiisa dhalay shukaansiya meeshii ka dhacay kaale arag romantic waa la shukaansaday jaceyl dhaxdood waa ku babaqay maxay isku yihiin isku aabayihiin ayada ma taqaana walaalkeed inuu yahay asagana ma yaqaan inay walaashiisa tahay dhibkaas waxa keenay odaygaan meel walba ka dhali oo macnaha haddana tabar iyo daruuf ibalba shufeeris ahay ismaayis tagay si idin shay galweyn marko meel kasta waxaas ka soo dhalay kontaktiga ama xiriirkan uu yaraaday gabadhii iyo wiilkii markii ay isjeclaadeen waxay ku heshiyeen in ay isguursadaan ay ku heshiyeen hooyadii adeer ma hayso aabana ma hayso gabadheeda waa laga soo doonta gabadhaana rabaa okay abtiyaala jooga ninkii odi loo waayo abti ma loo waayo la yiri ninkii abti loo waayo odi ma loo waayo abtiyaalkeeda meesha soo fadhiisteen sheekha la wacay arooskii ninkaaxi ayaa la diyaariyay sida ogtiin qaadiga wax isku meherinayo markuu soo fadhiisto oo wiilka lagu meherinayo waxa la weydiiyaa magaciisa saddexan fulaan gabadhana magaceeda saddexan fulaan ayaa la weydiiyaa gabadhan aabaheeda iyo magaceeda saddexan way taqaanaa wiilkaana sidoo kale wuu yaqaanaa adiga wiilka markuu magaciisa sheegay gabadhan ay magacii sheegtay magacyadii waa islahaadi dadkan maba baraxnaba waa islahaadi labadii magac ayaga ma dareensano hamuunta iyo rabaashaha jaceelka isku qabaana ka tanbada dadka dhanna khaalidi waxooyay suga
lamadiina maxaa idinka dhexeeya yiri lamadiina magacaan sudfa ama surprise ama kida ma ku kulmi karo adiga magacaa fulaan fulaan waay adina magacaa hebla hebel hebel waay ma dhici karto dhahay wareysaan isku yeesho adiga wiiliyo habarta gabadha habarteeda u tag ee wareeso ninka gabadhan dhali waalis wareysti nikaaxii waa la jooji sheekh waa jooji waalisku imaad waalis wareysti meeshii waxaa ka soo baxaybo gabadhii iyo wiilkii is aroosi lahaay inay bi isku aab yihiin haddii aw qaaligaas markaas isku mehrinay ilaahay tawfiiqda waafajin lahayn lamadan bacbutuluk isiisan lahaayeen is aroosi lahaayeen ay isku aruuri lahaayeen ilman iska dhali lahaayeen ilmahaas maxaa lagu magacaabi karaa marka deeqa maxamuud salaad adduunyada wax walbaa la arkaa shalay adduunyada way weyneed maanta way kooban tahay wiilkaaga koleetaba aabihiis ilmo kale caruur kale uu leeyahay adigana wiilkaaga kaligiisa ma dhalin caruur kale way leeyihiin marka waxaa laga yaabaa mustaqbalka aabbaha gabarow dhali oo wiilka ka seenin sida haddan baa idin sheegay inay dhacdo marka intay waxaas badhicinbo deeqa salaad deeqa maxamuud salaad haddii uu message-keena ama videogeena ama muuqaalkeena ku soo gaaro fadlan aabbahaas iyo wiilkiisa isku xir adiga koleetab wuxuu u baahan yahay oo kaliya waa wiilka inuu barto xoog ma wato waa kaa codsaday si qurux badan ibn aadanimo aabanimo ku jirta iyo kaaga codsaday in aa wiilkiisa oo la soo xiriiriso wiliba haddii aad la xiriirto walaasheena yaanaas oo magaceeda saddexan uu yahay Aisha Cabdiraxmaan Isxaaq ee dooyinkiisa kale oo waaweyn waxay joogaan dalka Netherlands Holland ayay ku nool yihiin Amsterdam ayaga naftirkood teleefanadooda waa heli kartaa yaanaas hadaa la soo xiriirtid aabbaha iyo wiilkiisa isku xir contact si loo ilaaliyo nasabka si ay bari u dhicin wiilkaaga walaashiisa inuu arooso si ay u dhicin marka hadda halis baro koleetaba videoga waa ku dheeraaday ama ku dheeraamaayo codsi waaye ilaahay dartiis ramadaana lagu jiraa anigana anigoo ka jawaabayo yaanaas codsigay noo soo dirtay in aan baafino wiilkan maqan koleetaba waajibkeyga iyo codsigii ay walaasheeda ii soo dirtay koleetaba inaan gutay ayaan rajaynayaa videogana halkan ayaan ku soo gabagabeynayaa dhammaan asxaabta waa salaamantiin meel walba oo dunida daafeeda ay ka joogteen waxaan idin leeyahay nabaadiino iyo noola kulanto tobanka dambaan ku jirnaa kuwii soonkooda laga aqbalo loo dambi dhaafo naarta laga xoreeyo jannadana gabagaba ku gal la dhahay ilaahay ha naga dhigo waxaan idin leeyahay nabaadiino iyo noola kulanto